cabdiweli cabdulaahi siyaad oo argagixisada ku dhex isticmaalay magaca bukhaari iyo maxamed nuur maxamed cabdi oo isna ugu xamaalay khawaarijta makhtuum waxaa si wada jir ah uga qabteen ciidamada amniga degmada wadajir kow iyo soddonkii maajo sanadkan xilliga qabashadooda waxa ay ku wada jireen kool mana is arkin weligood laakiin mid horjoogo u ah ayaa ku wada xiriirinayay kool isxambaaris ah ciidamada amniga oo foojigan ayaa baacsaday makhtuum waxa uuna iska tuuray F1 aan qarxin isla xilligaas waxa ciidamada ku dabeen saaxiibkiis qadka ay ku wada jireen ee uu ahaa sahmiyaha cabdiweli cabdulaahi siyaad ayaa hore uga shaqeeyay soo indhaynta bare ciidan oo ku yaala Taleex Tarabuunka Sheekh Cali Suufi ilaa waaxda barwaaqo ee warta nabadda dhammaan isku dayadaasi waxa ay ku baaqdeen ciidamada isku dhafka ah ee u howlgalaya sida wadajirka oo u muuqda kuwa aan la marsiin karin in bam la iska tuuro maxamed nuur maxamed cabdi ayaa isna qabtay howl ay ka mid tahay tii ugu dambeysay ee lagu soo qabtay wadajir waxa uu dheeraa isku day uu Taleex ka sameeyay laakiin uma hirgelin waxaa sidoo kale uu ka soo shaqeeyay kala gudbinta bamka ciidamada amniga ayaa maxkamadda ka hor cadeeyay sida ay u soo qabteen labada eedeysane ee dambiga gacmaha kula jiray waxaa qabanay maxamed markaa qabanay kadib waxaa sameynay maxamed nimo la xiriiraya wili soo wacay markaa qabanay ninka marka wuxuu sameeyay ninkan kale lagu soo xiriirinay lagu xiriirinaya anaga telefoon ka qabanay markaas wax oo ma dareysiin in xaalad ay jirto oo ciidanka amniga aan ahanay waxa iska dhignay isla ninkii inaan ahanay oo kadib sida ku soo qabanay soo telefoonka lagu hagaayay marka xoogaa ninka kale xataa anagana arko wuxuu isku dayay inuu cararo maadaama ciidankii oo ish ay ku dhacday carar kadib waa bursanay sidii ku soo qabanay abaare maqribkii markii la afuray ayaa waxaa banaanku aragnay goobtii aan ka shaqeyneen ninkaas oo geeska jira cabdiweli markaa banaanku aragnay goobta ciidanka oo fadhiyay markaa dhaan istaag shaatiga kor u qaad farqo wax ku sitay markaa istaag dhaanay ciidanka amniga waaye orodoo jabsad marka oo orday dhanka hodan oo u gooyay sida u bursaneen marka dambe waa soo qabanay markaa soo qabanay saraakiisha ku wareejinay wax yar kadib waxaa soo wacay mobilkiisa la soo wacay nicla tagana oo watay tagniya markuu watay tagniya laga qaaday ninka koolka saarnay markaas wuxuu dhahay intee joogtaa jidca kaara joogaana jidca kaar ma joogtaa ha ay waaya meel calaamad leh soo istaagay waa dhaqaaqnay anay ciidanka dharcadka israanay teetalaal jidca kaar ku yeela istaagay meesha taaganaan koolka marka waxaa saaran ninkaas kale oo dhahay gacanta buu ku wataaye meeshan kuma jeediye waa bulsho meel ay taagan tahay sheeg markaas aad teetalaal ina u sikada teetalaal isku aadi markaas waxaan dhahay teetalaalka taagana jaakada wata markaas oo dhaha waa ku ark oo dhaqaaqay dhanka xabal baariyo oo jigti jawmooti jagboonti booliska ku yaala meesha jagboonti markii waxa la laaf meesha taagnaa markaas oo dhaha hor u soo socdanka xabal baariyo soo aad anagna darees ma wadan ciidan dharcada een waa isdaba kacnay marka u dhawaanay jagboonti oo idhay koolka ka bixin hana damin mobilka sidaa u soo socdo okay waa soo dhaqaaqay sidaa u socday ninkii la kulmay marka la kulmay dhahay adina ciidankana hareerayay socdeen bistoola ay xirneed kadib bistooladiina la soo baxay waxaan dhahay shaati kor qaad ninka kale oo koolka soo saaray asina koolka ku jira kadib ninkii waa is adkeeyay shaati kor mu qaaday oo dhahay buugna gacanta uu ku wad shaati kor mu ku qaad waay xabada ku ridnay markaas oo shaati kor u qaaday oo dhahay ani waa ikna waxa uu laba telefoon oo wata mid weyn iyo mid yar telefoonka markaa ka qaadnay ninkan lambarka soo wacay ninkan oo soo waca koolkii wada saareen labadood hal mar oo koolka soo wada saaray bes mobilka markaa ka qaadnay ninka xabadii oo maqlay oo koolka soo wada saaray xabadii markuu maqlay telefoonkii uu dimiyay markuu dimiyay ninkan waa soo wadnay saraakiisha ku wareejinay kadib telefoonka dabagal ku sameyn si oo goobtiina uu dhow yahay umaleen telefoonkii ku celcelin markii dib waa la dimiyay kadib saraakiisha ku wareejinay ayaga wixii warbixinaya ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Cabdibaasid Madaale ayaa maxkamadda ka codsaday in labada eedeysana shartooda laga qariyo dadka iyo dalka sanadkan aan ku jirna 2024 horaantiisii waxaa soo wacay saaxiibkiisii hore ee kala tirsanaa ururka al-shabaab
cabdiweli saaxiibkiis markii uu soo wacay wuxuu u soo bandhigay inuu la shaqeeyo waa uu aqbalay cabdiweli waxaa lagu xiray amiirkii u qaabilsanaa amniyaadka gobolka banaadir kadib waxaa lagu soo xiray nin kale oo la dhaho jacfar oo asaga amiir u ahaa waxaana waajibaadkiisa looga dhigay oo loo diray inuu indheeyo goobaha ama baraha ciidan ee ku yaala gobolka banaadir goob kasta oo ciidan ay joogaan ama waardiye ka hayaan ama ilaalo ka yihiin ama wax ku baarayaan ama amniga ay ku sugayaan inuu xaaladeedu see u taalo uu ka soo warbixiyo si loo weeraro ama loo gaarsiiyo jug ay ka dhalato dhimasho iyo dhaawac waajibaadkiisa eedaysanaha koowaad intaasuu ahaa intaas haddaa uga imaano waxa uu soo sahmiyey waaxda barwaaqa sidaan maxkamadda ka hor caddeynay oo ka tirsan waaxyaha hoos taga degmada warta nabadda sidoo kale wuxuu soo sahmiyey bar control ku taala tarabuunka waxaa markii ugu dambeysayna ciidamada amniga u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan asagoo sahminayo guri ku yaala degmada Wadajir balse aan gurigii gaarin oo lagu xiriirinayo eedeysanaha labaad oo ah qofkii la rabay inuu dhagarta fuliyo oo ah bambatuure eedeysanaha labaad mudane gudoomiye asagana waxaa loo xil saaray inuu bambada tuuro bas kuna tuuro fariisimaha ciidamada ay ku leeyihiin gobolka banaadir sidaan hore u soo sheegnay labadoodu wax aqoona oo shaqo iskuma lahan balse labadoodaba waxaa xiriiriya hal hoggaan baa xiriiriya dhagarqabe waxaa xiriiriya dhagarqabe lagu magacaabo jacfar oo labadooduba ay u aaminsan yihiin inuu yahay amiirkoodii ama mas-uulkoodii eedeysanaha labaad wax faran ma qaadaayo ama wax fal ah kuma kacaayo ilaa eedeysanaha koowaadi uu u soo xaqiijiyo in goobtii markaasi uu ku tuuri karo bambada inta ka horeysa ma qaadayo haddii eedeysanaha koowaad uu soo sheego in ciidanka ay feejigan yihiin ama goobtu ay adag tahay ama la qaban karo ama ay khatar ay u muuqato wuxuu wargelinayaa amiirka ayaga xukuma oo markaas iyaga labadoodaba telefoon ku xiriirinayo eedeysanaha labaadna waa maqlayaa meeshiisa kama dhaqaaqayo nasiib wanaag waxay ciidamada amniga gaar ahaan racadda degmada Wadajir ay ku guuleysteen inay soo qabtaan ayagoo tuhun laga muujiyay eedeysanaha labaad oo wata bambadiisii oo sugaaya in loo soo fasaxo oo sahmintii iyo dhinacii ka jirtay iyo jihadii ka jirtay aan kala ogeyn ayaa waxaa arkay qaar ka mida ciidanka amniga kadib markii la arkay laga shakiyey wuxuu dareemay in uu ku jiro halis wuu orday bambadii uu watay uu rabay inuu ku dhagro ciidankana hore ayuu u tuuray haddaba mudane gudoomiye garsoore anoo soo koobaya gabagabadayda maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa eedeysanayaasha maxkamadda hor jooga waxaan si cad u caddeynay inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab waxaan si cad u caddeynay inay khatartoodu aad u sareyso waxaan kaloo si cad aan maxkamadda horteeda uga caddeynay in eedeysanaha koowaad uu tababaran yahay waxaa sidoo kale aan caddeynay oon maxkamadda hor keennay hubkii ay dhagarta ku fulinayeen sidaa daraaddeed mudane gudoomiye iyo garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa in eedeysane cabdiweli cabdulaahi xuseen siyaad oo loo garan og yahay magaca bukhaari iyo eedeysane maxamed nuur maxamed cabdi oo loo garan og yahay naaneysta maktuub in labadoodaba maxkamadda sharafta leh ay ku xukunto qodobada aan ku soo eedeynay weliba ay u fiiriso ciqaabta u qalanta labada eedeysane iyo ayadoo maxkamaddu fiirinaysa dhagarta ay leeyihiin iyo khatarta ay ku dhex leeyihiin bulshada Soomaaliyeed maxkamadda sharafta leh aad iyo aad ayay u mahadsan tahay qareenada u doodaya eedeysanayaasha ayaa iyagana maxkamadda ka codsaday in loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeyo waxaan rabaa marka koowaad inaan soo bandhigo aragtida koowaad ee ka qabno dacwadda lidka ku ama wakilkeena cabdiweli cabdulaahi siyaad taas oo u aragno in uu bari ka yahay eedda lagu soo eedeeyey ee ku xusan qodobka 6 faqradiisa 2 iyo 3 ee xeerka la dagaalanka argagixisada mudane gudoomiye mudane garsoore markii dhammaan la soo barbardhigo cadeymaha iyo qoraalada iyo dokumentiska maxkamadda hor yaallo waxay bari ka dhigayaan muwakilkeena
muwakilkeenna asagaba iska baryeelay ka mid noqoshada shabaab asaga iska baryeelay inuuna fal una gelin qodobada lagu soo eedeeyeyna in aynan qusaynin maxkamaddu way mahadsan tahay maadaama uu muwakilkeen uusan ka mid ahayn al-shabaab maadaama aan wax fal ah oo cad oo dhib geystay lagu soo qabanin ama aan lagu haysan maadaama wax caddayna oo inuu dembiye galay aan maxkamadda la horkeenin waxaan maxkamadda sharafta le ka codsanaynaa in lagu waayo dembiga lagu soo eedeeyey si waafaqsan 122 oo dib xornimadiisa loo siiyo maxkamaddu way mahadsanta ayadoo duruufahaas jirta qiraalkiisa iyo wixii maray oo si dhab ah u sheegay ay aqoon darradaas ay ka muuqatay iyo qabawnimadaasi ayadoo maxkamaddu u fiirinayso si waafaqsan qodobka 4aad sifaalaha dambiga 42 sifaalaha dambiga fududeeya waxaa maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa xaaladiisa intay qiimayso in ay u khafiifiso maadaama telefoon wax lagu fahamsiiyey faham darradaasi iyo aqoon darradaasi inay maxkamaddu u qiimayso ciqaabta xafiiska xeer ilaalintu ku soo ogeeyay maxkamaddu ay ka dayso maxkamaddu waa maasanta انت كاكا تانا كسو قادادي تانا جو يا maxaa qabataa adiga أنا bambada ku soo dhiibisay wax u jiraan inoo sheeg أنا ميلا كسوق هذا ya ميلا كسوق هذا haye بحشرت والي شرها كله see مركان lagu sharxay maxaa lagu dhahaa تلفون اللي يسوق aha إن وحالي ده إن بحش إن جانجد كبير aha إن مركان تورو ساس هي لالي ده aha intee ka soo qaadteen wada meesha ka soo qaadno intee تبيلا كسوق هذا ya تبيلا haye intee wada إن وحاوسوا ده سيبيان aha وحالي ده قفا مش كودي أرسن بحشو جاي aha إن مركان أنا وسيس على مركان والي سوق aha see lagu qabtay يا sidee lagu qabtay درعت كاس وقتين see kugu fahmay أنا بحشيمي أو ماشان كود أو maxaa ku tuurtay baan باع كوجرت ماشان أيو جرتنو aha كان ميلا في ليست مركان ننقر على إيشكي إنه أي ما ماشان ما هو في السايد وحن تبيلا وسعدا إن مرك إن محاول داس إله وأرد مركان وأصبر عبدا يسوتور إن بحشي وتور مرك بحشي ميل أو الأركان مركنو أكتور بس إن إذن كأو حي مثلا أو كوي كلام بسود ولا قبتي ميل ليجي بحشي مركان وعلى أركان الشعب أركان شعب مش شهكو أوان أركان saasaa lagu soo qaaday maxkamadda oo waqti ku filan siisa dhinacada ayaa ugu dambeyn waxaa soo xiray gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare xasan cali nuur shuute maxkamadda go'aan ka soo saarayso fadhigu waa xiran yahay cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho